magacayga waxaa la Faadimo Cismaan Axmed aan ka imaaday gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan magaalada Wajeer Kenya aan ka imaaday halkan waxaan u imaaday inaan tababar milcaamaha ama maamulka Soomaaliyeed ay farsamada ay ka bartaan wixii aniga aan bartay inaan ayagana sii bara oo ah sida caanaha loo sameeyo iyagoo macaan ah looga soo saaro inay caanaha lagu dari kara wixii aan haysano waxaan in wax ku kordhisani karna value addition oo already wixii anaga haysana inaan value addition ku sameeyna karna ayaan halkan u imaaday caanaha marka waxa lagu sameeynayaa laba si waa lagu sameeynayaa macaanka geel waxa laga sameeynayaa yogurt haddana waxa laga sameeynayaa ice cream labadaas ayaan wax ka bara ama aan ka tuso ama halka u soo istaagay macaanka looda waxaan sameynaynaa ugu horeyntii dabka ayaan u shidaynaa digsi aan biyo ku shubaynaa jeegiyo caaniyo la miiri oo wasaqda dhan laga saaray ayaan salku gelinaynaa kadib caanaha waan karinaynaa markay caanaha gaaraan 40 ilaa 45 kuleelkooda u gaara waxaan ku daraynaa sokorti marka sokorta lagu daro kadib caanaha waxaan sugaynaa ilaa ay ka buriyaan ay kuleelkooda ka gaara 80%. waxaan u gudbaynaa caanaha geela processka halka waaye laakiin waxay ku kala duwan yihiin looda iyo geela markay sokorta looda geela lagu darayo geela sokortiisa waxa lagu daraa 60 30 iyo 35 dhaxdooda waxaan lagu daraa stabilizer daawada la yiraahdo oo adkaynaysa oo ka adkaynaysa caanahaas biyaha sababtay caanaha geela daawada iyaga waxa xoog badan caanaha geela say caanaha geela daawada isku qaataan oo isku qamiiraan waxaan ku daraynaa stabilizer kadib waxaan sugaynaa caanaha inay kuleelkooda u gaara 60%. 60% markuu gaaro caanaha geela dabkaan ka dhigaynaa biyo qabow salku gelinaa jaag asaga aha waxaan sugaynaa ilaa 35% iyo 30 haddana qabowga ka imaado loodana 40% iyo 45 haddana qabowgooda soo daga markuu looda 45 ay tahay 40 iyo 45 u dhaxaysa geelna 30 u dhaxeeya labada waxaan ku daraynaa daawadii qamiirnaysi oo caanaha iyaga biri ka dhigaysay yogurt markay caanaha yogurt ay noqdaan oo caawa bariyaan subaxda markaad soo qaado shayga ugu horeeya sameynayso waxa waaye caanihi biyo karaayada ku jireen aad ka soo saaraysaa miiska soo saaraysaa miikiyaad u qaadan iyo dhaqan aad ku walaaqaysaa markaad ku walaaqdo waxaad dhaminaysaa markaan caanaha inay yogurt noqdaan inay noqonin waa kala saaraysaa kala fiirinaysaa kuwii halaabay dib u dhigaysaa kuwii fiicnaada processka kala marinaysaa marka oo flavor-gi ama wixii lagu macaynaya ku daraysaa caani markaan jubadaha ku shubaysaa wixii ka dambeeya caanaas waxay diyaar u yihiin inay suuq tagaan midaas waxay yareynaysaa 40% caanaha geela iyo caanaha looda way halaabaan dhulka Soomaalida ama dhulka kuleelka ka jiro taas waxay dabargoyn ku sameynaysaa caanihii la daadinay oo halaabay waxay dabargoyn ku sameynaysaa caanihii oo marka iyada badan oo laakiin aan suuq ku faafi karin ay dabargoyn u sameynaysaa dadkii waxay ka helayeen inay ku kobciyaan dhaqaalaha ay haystaan maadaama ay dhaqaale fiican haysan laakiin haday shaqadan bilaabaan ay dhaqaale badan soo gali kara wadankana dakhligiisa heli kara ama aad heli kara economic standardkiisa score u sii kici kara والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عنها عن ميرنو تبقى عن سارنو كدمنا عن يوجد كده كنا سبعة. فكان شيء كذا إن شاء الله سميني ما أنتوا أبد ديار بقى يوجد دمر كواتن. أنا يوجد هنا مودي دي سلام سوا ما يوقف ميلا أقلاتين عنها لا يعني شيء اللي كدوهين. كوي شيء اللي كدوهين سماها. أركوا عن سميني أنا وان أنا وان كلا قوينينا مرك لابا قيب وان كديجينا لابا قيب مركان كديجينا جاك أنا أخو كلا جرينا مرك ميكي كان قاضي فوان قاضي خلق كان كده ريدي ميكا مرك خلق كان كريدو عني سان باندي جاك سان أخو كماني على الشوي مركع أنا هاي عناصر دقرول ما كالبايدي سما
marka caanaha markaan saan yeelno daawadan aan ku daraynaa tan waxaa la flavor vanilla tan waxaa la dhahaa flavor strawberry labada waa ku daraynaa marka tan qaybaan ku daraynaa tan qaybaan ku daraynaa marka waad furi afkaad ka furaysa markaa ka furto saana ugu shubaysaa haruubkeeda ku shubay wax kale uma raadinayso haruubkeeda qiyaas yaraad ka dhigada xiraad ka dhax haruubka xiraad ka goynaysaa saas ayaa loogu dari marka saa looga daro afkaan ka xiraynaa marka tan miikiyaan soo qaadaynaa haddana aan dhex gelinaynaa anaan walaaqaynaa markaan tan cadaanka waxba kama bedelmaya baa dhadhamini baasha dhadhankay ku daraysaa vanillada jubadeedana waa jubad cad tan laakiin strawberry noqonaysaa strawberry marka lagu dhaatan waaye isagoo jubada cadaanka hada vanilla marka lagu dhahana jubada cadaanka oo haruubkeedu kalarkan yahay waaye jubadaha marka waa saan ku kala garanaysaa tan waa vanilla tan waa strawberry marka waxaan aadaynaa strawberry-gan ku daraynaa marka haruubka ku shubaysaa asagana waxeed ka dhimaysaa kalarkiisa ka ma ila arkaysiin soo ma aragtaan waxaan samaynaynaa kan intaa dhigi marka miikaad ka bixin haddana kanaad dhex gelinaysaa marka dana waxaana marka miikow korkiisa ku shubaysa daawada waxaa ku daraysaa jeeg urkiisa ku shubaysaa midabka caanaha suu ekaade ma isbedelay waxa ina isbedelaan ma ujeedin idinka marka isbedelkaas kaas waxa caanaha marka ku waxaa waaye strawberry waaye marka saa noqoto marka waxa laga rabaa waxa aad sameynaysa inaad dhimiso marka qofka dadka kale ma cabi karaan marka gadi kartaa waa inaad dhahdaa oo ka fiirisaa dhinac walba ka fiirin hatta hor in walka gudaha ka qabo lama rabo maragtay inta uu wax ka qabo lama rabo marka nadaafadda waxa laga rabaa standard inay ahaato oo shay waxna yani caafimaadka dadka ka bedela aysan ahaanin markaan saan yeelno caanaha lo'da miikaan waan dhaqaynaa marka caanaha lo'da waa laga dhaqay waa la nadiifini kuwii geela daboolka laga qaaday asagana waa lagu hagaajin karaa biyo kan qaraydas business markaan caanaha lo'da geelan fiirinaynaa marka asagana soo noqon doono waxay ku kala duwan yihiin caanaha geel iyo caanaha lo'da caanaha lo'da marka walaaqdeen adeegay noqdeen shalay maxaan idin dhahay caanaha lo'da boqolkiiba 86 waa biyo caanaha geel laakiin boqolkiiba 89 waa biyo iyagana marka waan arki doonaa waxa ay ku kala duwan yihiin adeega caanaha lo'da iyo caanaha geela yani adeegooda ama jir ahaan say kala yihiin waan arki doonaa qof walbana bakeeriya loogu shubi doonaa caanaha geelina loogu shubi caanaha lo'dana loogu shubi doonaa waa dhadhaminaysaa markaan horta waxaa la sameynaya shalay caanaha aan hayno wax ma ka sameyn karnaa ama wax ma ku dari karnaa meesha waxaa la value addition waaye yani wixii haysta wax ku darso hilibka soo jiri lagama dhigo suu ku halaab inaan loo sameeyo hadduu kawaanka ku baara waa la hagaajinayaa nyiriga waa la gadaa ama bakeeri ku gad ama galaas ku gad ama waxaad ku gado ama jeega ku gado ama karjanka naftiisa ku gado kuwan waxaa laga rabaa sidii aad hilibka u qayma yani aad u qaymaynayso inaa iyagana aad u qaymayso ood qaymo ku darto qaymaad ku dari maxaa waaye marka intay kaa halaabi lahaayeen ama ay kugu baari lahaayeen yoogada ka samayni yoogada waxaad gelinaysaa faranjeerka saasaa lagaaga gadanaya marka ma i fahanteen soo maaha markatan caanihii loodi waaye markan caanihii hadaba waxa baad samayn waysa oo 20 ama 30 samaysa meesha wax ku waa iska yari adiga waad garan kartaa shayga markaan ku qasaaro noqdo qasaari yahay ma wadin soo dhaaf
لكن ضغطان قبل محمد هو إيه أصلا يسح حيسين خلاص أسكو بعجلين أنا بعشرة إذا كملي كتا صار ملك وجهت أسكو جهت بعض حتى لو إلا ضغطان قبل الأوضة وأنا الكنيسة سديت المكان أنت لما أتفق بقى سديت مرة هحكوا جالسين بعض هحكوا جالسين كذا هذا شو إتمنى في سبعة شرط التمكين مخفف باللغات الحق أنا كمان حبقى سديت المكان وجالسين بعشرة أكيد هذا لا يوم هذا سكله يعني أول عانه مركي نجمع عانه ونجاه لا بجرين وخسارة بدنا نوصل نجرتي تتكعانها كذا هدانا هاي كوكذا هو الكعانها يدل عدا وعدستي هاي الدليرها هي إزت وأنا قوم هاد علينا يوت كنا برين عانها سفوين لها جدا وين كلا قدروا وحقوم هاد علينا اللي بدها هيدت SWSO شركة جيزت ماما فاطمة ونوقت مد ودن ككيني إننا توبرتو وأقوم هاد علمينا وحبنا أنا كفايدنا ساعاني هنا نوقع خسارة مرنا ضايق وقدرنا مرنا أيوة يوقد وقدر قد ما سنتين عانو عاني عن قد تشرني وينجا هلا بتشرين أنت بدن أيوة ضايق عم سوسة عمركنا الله كانوا عانها سوسة adigu waxoogaa ka bacdi way naga halaabi jireen suuquna uu iska xun yahay oo suuq fiican ma aanan heli jirin meel kulul oo qorraxana waan ku gadi jirnay hay'adaana na soo qortay waxaana la baray marka caanihii qaabo badan oo u maareyn karno waxaana la baray sida loo karinaayo sida loo nadiifinaayo weelkii sida biyaha loogu dhexridaayo sida qashinka looga bixinaayo adi laftirkaaga sida isku nadiifinaysid meeshii aad ku gadanaysid sida aad u nadiifinaysid habeenkii baa la bariinayaa markii aad wax ku dardartay maalintii oo wixii lagu daraayay sonkortii daawadii habeenkii baa la bariinayaa subaxdii markii loo yimaado haddana waxaa laga dhigayaa yoogadkii ayagoo lagu darayo kalarkii loogu talagalay marka maasha Allah wax badan baan ka faa'iidnay waad mahadsantihiin walaalahan jaazad kismaayo macalin Faatuma iyo dhammaan gabdhaha iyo hooyooyinkeena ka faa'iideysanaya mashruucan ku saabsan caanaha in siyaabo badan loo horumariyo oo la baro siyaabaha loo isticmaal lahaa mashruucan wuxuu idinka saacidayaa sidaan hore idinku sheegay caanaha dhayda ee lagu keeno waa kala qaybinay waxa leedahay maanta meeqa litir ay ga bixi karto waxaan haystaa kaliyanti waxa ku timid 20 litir oo kale oo caana ku yimaadeen waxa dhaysaa waxaan haystaa 10 litir waxaan u haystaa dad 10 kale seeyay awal way ka dhanaan jireen qiimihii adi iyo customer-gii labadiina waa ka khasaar jirtay oo idinka khasaar jirtay laakiin maanta waxaad baranaysaan caanaha inaad qaybisaan oo inta aad customka u helaysaan aad gadanaysaan moogi inta kale iyagoo dhay ah inaad u bedeshid yogurt oo hadhow aad ka dhigtaan wax kale oo la isticmaalo oo beeci soo celinaya kasoo u baahan yahay in la sameeyo xayeysiis badan loo sameeyo insha Allah taala waa la idinka gadanayaa waxa ka badbaadaysaan marka caanihii inta aad customka u haysataan moogi inta kale ee halaabaysay ee neefki laga soo dhuun qabtay عدي حوالها بعديها اللي جوكتي لقى صار بالقطع اللي ربي إن لو بدلوا بدأ عصير سفير هير يكون على هذا إذن كان أت كوميشن كهشان مركا خساري إذن كيو هير كي عناها بعديها إذن كين حرير كيمي لبدي المسيا وفائدان عناها وقياس إذا أنت كستم كويس استمويه وضيعة أياد أنت كلا سيبصوص عنق إنه حد كسم مثلا إنسان يوجد إن شاء الله تعالى وحكى له لذين برد دونا سيد الله سماه ice cream ka hadana idinku xiga marka aad maanta aad idinku sameysaan insha Allah saas oo kale hadana ice cream ki maadana macluumaadda ayaa tusaysa hadana idinka ayaa sameynaysan seen oo ahaan jirtay marka wax kasta oo customer bulsho loo sameeynayo saan hore isugu sheegnayba nadaafadda waa number 1 nadaafadda shakhsiga meesha aad ku shaqeynaysid weelka aad wax kaga gadanaysid hadii wax la cuno aad dad rabtina ka gadid laabudda saddexaas mar walba inuu noqdo wax lagu dadaalo waayo hadii waxaas contamination uu taabto oo qofka ama ku xanuunsado adiga ayaa mas'uulka nadaafad darrada ka timid marka
insha allahu tacaala duruusta si fiican u qaata dadaala annaga mataqaanaa su-aal kasta waa una weydiin kartaan macalimadda farta taagaysaan saan isu sheegnay macalin meeshaas iigu celi waa mahadsantihiin tababarkan waxaa loo sameynayaa in ay jiraan caano badan oo suuqa oo soo haro oo la daadiyo ama idinka halaabo marka maxaa la rabaa marka in la helo khasaaraha ku soo gaaraya la rabaa in la yareeyo maxaa lagu yarayni in caanihii aad qaybsato qaybna aad ka dhigato aad iibsato ayagoo fresh qaybna aad ka dhigan karto yogurt ayagoo yogurt aad iibsan karto runtii dadaal badan baa la sameeyaa tababaro badan baa la sameeyaa waxaan idiin sheegayaa ugu horeyso waxa aad ka faa'iideysaan tababarkan ha noqdo farsamada aad baranaysaan magaaladan tababaro badan baa laga sameeyaa waxaa la fiiriyaa meesha maalinka aan joogo $10 ma la siini yaa la fiiriyaa taa fiirinna waxaa la rabaa inaad farsamo barataan oo maalinkii aad sameyn karto $100 $10 oo halka marka lagu siinayo fiirin runtii aqabad magaaladan ka jirta waaye oo dhibaato ku hayso dadweynaha kulli annaga midda waan ka horjeednaa oo marabno waxaa la rabaa focuska ama interestigaada inuu noqdo farsamadan aad baranayso oo hadhowna ku anfici doonto ha noqoto tababarada markaan sameyno annaga idinkama daba harayno SWSO hadda waa maqlaan waa idin daba taagnaanaynaa dadkii la tababaray maxay qabanayaan waa laydin soo raadin xaafadiina laydinku imaani goobta ganacsiga laydinku imaani guryaha laydinku imaani ha u malaynayna in tababar la sameynayo lagala tegayo qofkii la arko inuu wax wado oo uu shaqaynayo ama groupkii la arko inuu shaqaynayo waan caawinaynaa ama qalab ha noqoto ama tababar kale ha noqoto waan siinaynaa laakiin qofkii la arko inuu shaqaysanaynin asagay u taallaa qadku ka baxayaan runtii waa fursad muhiima faadumo aniga waan wada shaqaynay hadda ka hor shalaan halkan isku imaanay kismaa inay joogto maan ogeyn warshaday leedahay ee soo saaro caanaha yogurtka magacay leedahay shoodahan waa la soo iibiyaa hadda kuwan waxaa loogu talagalay tababar in lagu sameeyo hadhow wax kuma iibin kartid maxaa yeelay hadhow markaad fiiriso qofka wax kaa iibsanayo shoodan biyo laga cabay waxaa laga yaabaa in wasaq laga soo qaaday meel laga soo qaaday qofka kuma aaminayo laakiin wax nidaamsan oo noocan haddaad la imaato suuq baad u heli marka idinka naftiina hamigiina ha noqdo inaad ka gudubtaan bahaladan tababarka lagu sameynayo oo u gudubtaan in warshadihii iyo caagan aad samaysan kartaan oo soo iibsan kartaan magacyada aad ku qoran kartaan oo gurubyo ah oo mustaqbalka aad idinka caawin karto runtii waxbarashada la bixinayo lacagaha hadda dadka lagu bixinayo ama waxbarashada lagu bixinayo waa canshuur dad laga soo qaaday hadda hay'adda GIZ fundingkeeda ama dhaqaalaheeda wuxuu ka imaadaa dowladda Jarmalka wasaaradda iskaashiga caalamiga iyo dhaqaalaha canshuur dad laga soo aruuriyay ayaa lahaa marka ama tababar ha lagu sameeyo ama dad wax lagu qabto idinka naftiin waxa idinka rabaa dadaal muujiya wax markii lagu bilaabo oo shaqo lagu tuso shaqadii waxaa la rabaa inaan meeshii looga tegin oo hor loo sii wado imisa qof rabtaa inay shaqadii hor wadato qofka wada waa isay leeli waxba madaxweynena waan ka tegaynaa kuwa soconayaan sii wadaynaa qofka asagaa khasaare waxbaa lagu baraya farsamaa lagu baraya farsamada haddaad ku shaqaysan waayis adaad khasaare qof waxba kamaad goynin inkastoo lacag ay khasaarta lacag aad khasaarise waxba kamaad goynin farsamada iyada ahayd waxaa la rabaa inaad wax ka faa'iidaan dhaqaale aad ka heshaan marka dardaarankayga